سورة الكافرون. سورة الكافرون وسورة مكية waxay soo degatay hijradii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ka hor. sababu nusuulkeedu wuxuu ku saabsan yahay reer quraysh ayaa nebiga u imaaday. waxay dhaheen nebi maxamedow ama muxamedow, niyo waa isdhibnay, ilaahyadanadii baad caayaysaa, aabbayaashanaad wax ka sheegaysaa, xaalado badan baynu isla soo marnay. waxaan kaa rabnaa hadda kadib inaynu itixaadul adyaan wax la yidhahda samayno, sanadna ilaahaaga inaan kula caabudno, sanadna ilaahyadanadan faraha badane caabudno inaad nala caabuddo, oynu meel dhexe isugu nimaadno ayaan rabnaa. way soo jilceen. nebiga calayhi salaatu wasalaam wuu iskaga aamusay, wuuna ka dhaqaaqay. waxaa kusoo degatay isagoo nebigu calayhi salaatu wasalaam sii socda suuratulkaafiruun. wuu kusoo laabtay wuuna ku dul akhriyay nebigu calayhi salaatu wasalaam. waxayna tilmaamaysaa suuratulkaafiruun inaan marnaba diinaha la midayn karin, oo diinta xaqa ay jirtaa iyo diinta islaamka aa tahay, diimaha kale oo dhanna ay baatil yihiin ayay tilmaamaysaa. bismillaahi, ilaahay magiciisa ayaan ku bilaabayaa suuradda. allihii arraxmaani naxariista ku tilmaanaa, allihii arraxiimi ee khalqigiisa u naxariisanayay. bismillaahi, ilaahay magiciisa ayaan ku bilaabayaa suuradda. allihii arraxmaani ee naxariista ku tilmaanaa, allihii arraxiimi ee khalqigiisa u naxariisanayay. qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow, yaa ayuhalkaafiruuna gaaladiyey, reer quraysh iyo wixii la halmaama ama la mid ah, laa acbudu ma caabudayo hadda iyo hadda kadiba maa asnaamta tacbuduuna aad caabudaysaan, ma caabudayo hadda iyo hadda kadib. walaa antum idinkuna ma tihiin caabiduuna kuwa caabudaya hadda iyo hadda kadib maa allaha acbudu aan caabudayo. walaa ana aniguna caabidun mid horay u caabuday ma ihi maa asnaamta cabadtum aad caabudaysaan, mid horay u caabuday ma ihi. walaa antum idinkuna caabiduuna kuwa u caabuday horay ma tihiin maa allaha acbudu aan caabudayo. lakum idinka waxaa idiin sugnaaday diinukum diintiinna shirkiga iyo baatilka iyo kufriga ah ayaa idiin sugnaaday. weliya anigana waxaa ii sugnaaday diinii, diintayda xaqa iyo tawxiidka ah ayaa ii sugnaatay, meelna isuguma imanayno. sidaas ayuu nebiga kusoo degatay kuna dul aqriyay gaaladii. qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow, yaa ayuhalkaafiruuna gaaladiyey, waa reer quraysh, laa acbudu ma caabudayo hadda iyo hadda kadibba maa asnaamta tacbuduuna aad caabudaysaan. walaa antum idinkuna caabiduuna kuwa caabudaya hadda iyo hadda kadib ma tihiin ma allaha acbudu aan caabudayo. idinkoo dhaqankan ku sugan weye, ilaahay inuu idinsoo hanuuniyo mooye. walaa ana aniguna caabidun mid horay u caabuday ma ihi maa asnaamta cabadtum aad caabudaysaan idinku. walaa antum idinkuna, oo nebiga ilaahay baa ka ilaaliyey inuu sanam caabudo hadda ka horba. walaa antum idinkuna caabiduuna kuwa horay u caabuday ma tihiin maa allaha acbudu aan caabudayo. oo ilaahay horay maydaan usoo caabudin oo gaalaad ahaydeen, haddana gaalnimadkii baad ku jirtaan, aad ku doodaysaan welibana. lakum idinka waxaa idiin sugnaaday diinukum diintiinna shirkigii iyo baatilki iyo kufriga ah. weliya anigana waxaa ii sugnaaday diinii, diintayda xaqa iyo tawxiidka ah. suuradda nabigeenna wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam, qofka aqrista habeenkii wuxuu waagu u baryayaa ilaahay isagoo ka badbaadiyey shirkiga, oo shirki iyo baraa'atun min ashirki isagoo abu ilaahay waagu ugu barinayaa. marka habeenkii aqriso suuraddan. wallahu aclam wa axkam.